أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمان أصحابتي دو سومالي دو كليين سو دوادا كليين. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo mowduuc cusub oo ma cusub waa wax soo noqnoqday oo taariikhdeena iyo Soomaalinimo iyo waxa dhanba wasakh ka dhigay. maanta waxa ka dhacday qiso aad u fool xun oo xanuun badan waxay ka dhacday magaalada Muqdisho, inkastoo ay hore u jirtay oo Soomaaliya oo dhan kor ka hoos gabdhaha inta la faraxumeeyo oo la dilo ama la faraxumeeyo ayna cidina waxba aysan ka qabanaynin, oo aysan dawladdu wax ka qabanaynin, oo aysan culimo waxba ka qabanaynin, oo sheekh uusan waxba ka qabanaynin, oo nin uu waxba ka qabanaynin, oo naag wax ka yacni qof wax ka qabanaya ma jiro. arrintaas iyada ah arrintaas way nagu soo noqnoqotay marka kale hadda ana hadlana ma maleynaa inay wax bedelayso hadalkayga bas, laakiin waxaan rabaa inaan u hadlo waa la nool yahay hala hadlo oo hala sheego bas, taasaan u hadlooyaa. waxaa maanta dhacday gabar yar oo ardayad ah oo qurux badan oo da-yar oo miskiina intay maxaan ku dhahaa, oo gabdhuhu markay dhalinyarada yihiin de waa caadi, gabdhuhu wiilashu way shukaansadaan, wax ceebmaha. Soomaalidu weligeed bay soo shukaansan jirtay, ayeeyooyinkeen iyo awowyaalkeenba way soo shukaansadeen. gabar intay nin la sheekaysato ama balan ha u dhigto ama meeshay rabtaha ku kulmaan way kulmi jireen. ma dhahayo horta waa sax gabar inay nin gurigiisa ugu tagto, wax fiican xataa hadaa nin la sheekaysanayso oo shukaansanaysa meel caam ah oo ay dadkoo dhan wada joogaan ama gurigiina oo kale inaad kula sheekaysatid. inta uu siray gabar wiil ay sheekaysanayeen, hadda kahor waxaa arkaya kuwa inta video gabdha ay sheegto video laga qaaday social media la soo dhigay. boqol jeer hadlo waxay yiri gabdhaha nimanka hadda jooga ha aaminina, war niman la aamino ma joogaan, war nimankii way halaabeen. Soomaalida nimankoodii intii fiicnayd way dhinteen, qaarna I don't know wax ku dhacay, nimankii waa halaabeen. dad kuwa waaweyn xataa arrintaa wax ma ka qabtaan, culimada arrintaa wax ma ka qabtaan. I don't know why way soo noqnoqotaa. haddii wax laga qaban lahaa maysa soo noqnoqonayn, arrintaas waa la kala jari lahaa. ma fahanteen? gabadhii nin bay la sheekaysanaysay, intay qabatay bay maxaan ku iraadaa waxa la sameeyey, wuu soo balamiyey gurigu ugu yimid, ay ugu timid. markii ay u timid niman kale asxaabtiisa u balamiyey. ma fahanteen? ana hadda ma sheegi karo dadku qabiilyo waxbay isdhacwadeen, laakiin I'm not sure inuu qabiilkaasu hayo. qabiilkii xanuun igu hayo. waxa xanuun igu haysa gabadha miskiinta oo gabar oo iyadoo kalaan qabaa oo inta lasoo shirqoolay guri loogu tagay, waxa ogaa lagu sameeyey, haddana weliba la dilay. oo saasay tahay inaan wax laga qabanayn waan ogahay. reasonka aan ku ogahay inaan wax looga qaban karin hore bay u dhacday, mar ma dhicin, labo ma dhicin, saddex ma dhicin. yacni waxay iska noqotay musalsal turki ah oo aan dhammaanaynin. hadda taasay dhacday, haddana way dhici doontaa, beri bay dhici doontaa. hadday Muqdisho ka dhicin ama meel kale unbay ka dhici oo Soomaali joogto. marka haddii arrintaas wax laga qaban lahaa oo nimanka waxaa sameynaya inta lasoo qabto sharciga la horgeyn lahaa, la ciqaabi lahaa, mid kale ma ku degdegi lahayn, ma uu sameyn lahayn wallaahi. laakiin mid kasta wuxuu u sameynayaa isku halayn. markay gabdhihii waxaas ku sameeyaan arrintii waxa odayaal baa soo kala dhexgelaya, waxa la leeyahay nabadoon kan oo adinka qabiil hebel oo gabadhii waxaas la idinkaga sameeyey intaanoo lacag qaata. war wax dad la dilay maaha oo nafta laga gooyey. ninka marka la dilo oo nin dilo, waxaa rabtiin kaga xaala ama diya ka qaata ama asagii dilay ama waxaa rabtiin u sameeya, ama haddaad doontaan sii daaya iska saamaxa. kan waa qadiyad, waa wax aad u fool xun, waa cirdi iyo sharaf. gabar baa la dilay. gabadhii waxay tahay sida idinku u aragtaan ama agtiina gabdhuhu markay joogaan waxaad ka qaadaan awoodii iyo waxay lahaayeen dhan, xuquuqdii baa luminaya. midkay la dhalato gabadha xuquuqdeeda dhuminaysa, aabihii oo gabadha xuquuqdeeda dhuminaysa, midkii ag joogay oo gabadha xuquuq baad dhuminaysa, mid kastoo mas-uul ah oo gabadha xaqeedii baa dhuminaysa. waa inaan nimankii la ciqaabo. sharci islaamkeenu ma ogola waxaas. qofku markuu qof dilo wax xal buu leeyahay, laakiin arrintan waa gabar la faruxmay, waa wax aad u foolxun. dhaqanka Soomaalida iyo diinta labadaba way ku foolxun tahay. inkastoo dilowguna uu xun yahay, haddana tana kasii foolxun. gabadhii haddii maanta gabadhii la dilay oo nimankaas ay safka ka galeen,
nimankaas xataa qaar waa fakadeen alle qaarna waa laaya haddii haddaa la hayo oo waxaan hubaa gacanta nimankaas lagu hayo oo ay caawa xiran yihiin dhowr beri ka bacdi waa la sii daynaa. maxaa lagu sii daynaa? xeer Soomaali. marka xeer Soomaali waa lagu sii daynaa. waxaa la leeyahay gabadhii ciddeedii baa loo tagayaa. waxaa la leeyahay gabadhii way dhimatay, maxaan ku dhahaa niman boqolow ah gabar ma loo dilaayo, intaasoo wiiloo boqolow ah hal gabar ma loo dilaayo. waxaa idin siinaynaa diyadeedii. lil asaf aabaheed iyo walaalkeed baa diyadeedii gabadhii qaadanaya. gabadhii saas loo galay oo la faraxumeeyey oo la dilay, aabihii dhalay iyo walaalkeed ba qaadanaya. marka gabdhihii Soomaaliya oo maanta Soomaaliya joogay waxay noqdeen looma ooyaan. ma maqli jirteen looma ooyaan? marka la idin leeyahay markay dadkan cadaanku idinku dhahayaan ama dadkan qeyr islaamka idinku dhahaya islaamku gabdhaha saas u galaa, idinka islaamku saas uma gala ee dhaqanka Soomaalida ayaa gabdhaha saas u gala. islaamku shaqo ma ku laha. islaamku gabdhaha wuu karaameeyey, karaamad buu yeelay, qiimo weyn, laakiin dhaqanka Soomaalida baa ayaa gabdhaha saas u gala. gabdhaha duleeye, gabdhaha saqay yareeye, gabdhaha xuquuqdooda dhumiye, gabar iyo wiil aan isku wax uga dhigin. ilaahay ma uusan dhihin wiilku waa 100 gabartana waa 50. ilaahay wuxuu dhahay an-nafsu bin-nafs. يا النفس بالنف معناه إذا محاوي نف مركي دشو نفت هذا كلا لو دليا ما وصل لهن إلهي قرآن كيس نوجو مشيجن ما دهن مركي أو قبر للدلو نص نبال الدليا ما دهن ودقن حن أو فال حن لنا الصومالي ذا كي ما هل أيضا شيء سودا يسقبل وكنتن ويلكنا وبقول القرآن كم يشرتو قفك يجسو بحينا وحلا وحنا وعسينا كتاب كاس إلهي كم تعالى قبل وكنتن ويلكنا وبقول كم تعالى ما كنت على يعني قبل ويل لو دين نف إلهي نف فوق هذا نف النفس نف نفتنا واعسكم مركن ممكن قبل أنتي وحاسك سميين حتى ندلي بري حتى صوم إذا الله هذا لا يقولي لما جار حتى قارن وحمق له يبالي السوداء قارن وحمق له يا وحريين لكن وحن هو أن عاو كسر هل كان كفدي ما أمانته وحن هو إن نمن كسر سيدينيو إذا أو الله أهل كده أو قلانيان أو أهرالي كيهين أو أقادنيان دور كن أو لعجة دور كن أو لعجة أو دماني سادا مركا قبل كست أمانته جوكته محاكو إن هذا سوماليا سيف معها أمان معها لأنه مركي ميت كست أنت العقل قصو قاعد أهل كذي لسيو وحيسي دي رجلنا يسدي أبت ييذا بهلها ضدك عنا ماشي جوجا وحي أسمينا يسدي رجلين ميت كستو حلاي ميت وكهلا أو عجبته وأقصنا هادو أهل كي قردت كيني قبيل كي قال عق أرورنا ولا ديبه saasay marka arintu ku sii soconaysa laakiin hadii la karbaasho nimankaas maxkamad la saaro la xiro aan qabiil iyo dhaqan iyo wadaadi iyo duqyaal ay soo dhaxgelin oo arinta sida sharciga uu Ilaahay uu ka yiri quraankiisa uu noogu yiri looga sameeyo gabadhaas ay maxaan ku dhahaa mar dambe nimankaasi nin kale waxaas ma sameyn lahayn laakiin waxaas dhan oo gabarta duleynaya oo gabadha xaqeedii xuquuqdeeda luminaya waa aabaheed waa walaalkeed waa adeerkeed waa wadaadka ee culimadii waa qabiilkii waa dadkii meesha deganaa waa xukuumadii waa sharcigii maxkamadii kulligood ay ka duminayeen ma fahanteen marka lil'asaf aad baa horta ugu xumahay gabadhaas inuu Ilaahay u naxariisto yar oo saqiirada ah oo la dilay dambi ay leedahay ma jirto xaqeeda kulli hadii aabaheed iyo adeerkeed ay dhumiyaan iyo walaalkeed Ilaahay ma dhuminayo xaqeeda Ilaahay baa u qaadayo kulli waaxid oo khalad galay haduu adduunka ku dhoonto ama oo xaq qofka bini'aadamka la doodsiyo Ilaahay baa meeshaas u jooga kaas iyo maalintii qiyaamada xaqeeda qaadanaysa laakiin waxaan aad ugu xumahay arintan way sii soconaysaa ma dhamaanayso maanta dhacday bari bay dhacaysaa bari dambe dhacaysaa maanta Muqdisho ay ka dhacday bari Boosaaso ay ka dhacaysaa Gaalkacyo ay ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa ay makaan oo Soomaali ay joogto marka gabdhuhu saas bay ku dayacayn gabdhaha Soomaalida boqol jeer baa idin sheegay waxa idin ku dhahay nimanka Soomaalida iska ilaaliya hala sheekaysanina
laakiin ma maqlaysiin midka wiil Soomaali ah wiilka Soomaaliga waa kaas wiilka Soomaaliga waa ku bahdilaya wiilka Soomaaliga waa ku kufsaday intii safka ka galeen darashada ka soo tuuray wiilka Soomaaliga waa ka intuu ilmo ka dhalay ilmaha kaaga tagay wiilka Soomaaliga waa inta aad ka axsaan inta u sameysay oo soo qaaday oo dhibaato oo ciriir iyo meel ku gaajeysay inta ka soo tagtay ka keentay markaad meelahan keento qurux badnaado soo nuuro muraayad isku arkay duq waaye iyo naag xun waaye way isxirtay iyo way dishay ku dhahay wiilka Soomaaliga waa kuwaas ninku qiimeynay oo qiimahaga yaqaan islaamka Ilaahay waa badan yahay nin Soomaali bis ma aha muslim dad badan oo muslina anay ma idin dhahay nin qeyr muslina aad laakiin nin muslina wiilasha Soomaalida wax hadda ay faa'iido ay leeyihiin ma jiro kuwii ka waaweynaa annaka aragnay kam shufna maraakib ay dhahdaa carabta kam shufna maraakib maxaan aragnay kuwa idi waaweyn oo kuwii iga da'waaweyn oo hadda kuwa jooga dhali karay kuwaas baa la arkay kuwii kasii horeeyaa la arkay marka wax faa'iido ah ma leeyihiin gabdho in isku tashataan nimanka la shukaansanaysiin oo guriga ugu tageysiin nimanka la shukaansanaysiin oo video call-lada idinka soo wacay oo waxay xun idinku sameynay idinka iloosh dhawidin ma umul baatihiin taariikh badan hortiina ku dhacay imisa gabar baa la ceebiyay imisa gabar baa la kufsaday imisa waxa jira malaayiin gabdho inta la kufsaday la farxumeeyay la dhahay oo arinta hoos loo dhaqay faraha hoos loogu dhaqay oo aabaheed iyo hooyadeed ay lacag aabaheed iyo walaalkeed hooyadu inaysan waxba ahayn waa ogahay aabihii iyo walaalkii ay lacag ka qaateen oo wiilkii lacagtii gabadha walaashiis lagu faraxumeeyay oo waxaas loogu sameeyay baa naag ku guursaday ama aabihii baa naag kale ku guursanaya ama waxba ku soo gadanaya ama geel ku gadanaya ama guri buu ku gadanaya waa gabadhii dhameed uu dhalay buu intuu lacag ka qaato wiilkii ku aroosinaya ama asaga ku aroosay ninka aabaha dhalay waalidiintiiba bilaa damiir ah walaalihiiba bilaa damiir ah wixii la dhashay gabadhaas baa bilaa damiir oo helunaar ah ninka walaashiis inta la xoogo la farxumeeyay saf laga kala darashada laga soo tuuray ama aabihii saas la yeelay haddana bari inta loo tago leeyahay waxaan waa dhalinyaro khalad bay galeen intaas qaado waxa laga yaabaa ina gabadhii ama hooyadeed aana looga gadin hal dirac oo dirac baati inaan looga iibin baa dhici karta lacagtaas aabahaas intuu qaatay inuu naag kale ku arooso ama uu wiilkiisa ku arooso saas baa gabdhihii qiimahoodu ay ku lumeen gabdhihii nimanka Soomaalidu idinka sameynaysiin cadaawad la idinku naco idinka gabdhaha ku sameynaysiin idinka cadaawada abuuraysiin waad abuurteen oo waa abuurteen halka maanta simare inta ma isla joogna hadda gabadhaasay qof loo xirayo meel afarta xiran oo ay hadda waa la sii deynaya ama qabiil lagu sii daayo ama lacag lagu sii daayo wixii lagu sii daayo waa lagu sii deynaya aabihii iyo dadkii gabadhaas ama walaalahay ka dhalatay hadiiba la cabiro waaye oo la dhaho gabadhiini waa kane maxaa suubinaysiin maxaa hadda Muqdisho ay arrintaani ka dhacday xukuumadda nimankan ku jiraano waa askar ama waa qabiilkaas cidina waxba idin siin mayso cidina waxba ma idin ka qaadanayso dulli Allah idin ku rido laano inkaarti iyo xaqi aad gasheen oo ka gasheen dadka masaakiinta oo idinku dhex hoostiina ku jiro maatida ah waxaas ba idin haysta wayna idinku soconaysaa Soomaaliya ilaa waligeed bay idinku soconaysaa intaad gabdhaha aad saa u galeyseen oo xaqiraysan inta la farxumeeyo la dilo fiidiyoyaasha laga duuba la soo dhigayo social media intaasoo dhan inta sameeynaysan wallahi inuusan Ilaahay عقوبة إذا كنت إناد كبحين ولكن ساس بقوا هيسانيسان وحنا هاي مريحان مجهرتين هوي ساس بقوا هيسانيسان آخر كان هوية تجيسين كل جينا هوية متقانا وبيس المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.